بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan xalinaynaa imtixaankii sanadka hore ee maadada xisaabta. imtixaanka form 4 looga qalin jabiyo si aan ugu faa'iideyno ardada sanadkan qalin jabinayso 2020. imtixaanka waxaa ugu horeeya ay tahay inaad sameyso waxa weeyaan inaad instructions ka akhriso sida halkan ku qoran. There are two sections. imtixaanka laba qaybood ka kooban yahay. qaybta koowaad oo 20 su'aalood ah ayna tahay su-aal kasta marka lagu siiyo waxaa lagu siinaya 4 jawaabood. 4 jawaabta la rabaa inaad kasoo bixiso jawaabta saxda ah. qaybta labaad imtixaankan waxaa weeyaan 15 su'aal oo xal ah. qaybta koowaad imtixaanka waa 40 darajo. qaybta kalena waxaa weeyaan 15 su'aal oo problemka waxaa weeyaan waa 60 darajo. laba marka talo ayaan kuu soo jeedinayaa. talada koowaad waxaa weeyaan imtixaanka inaad iska ilaaliso inaad waqti badan aad su'aal geliso hal su'aal. waa inaad su-aasha markay kugu istaagto aadan wax badan ku dul fikirin, aad u gudubto su-aasha ku xigto ilaa aad dhammaadka imtixaanka gaarayso. hadhowna aad usoo laabato su-aalihii kugu istaagay inaad xaliso. taa waxay kugu taageereysaa ama kugu fududeyneysaa inaad imtixaanka su-aalaha fudud ee aad taqaano aad xaliso oo aadan waqti u waayin. haddii kale inaad su-aal kasta ku dul fikirto waxaa laga yaabaa in waqtigiiba waxbartanka adoo maraayo imtixaanka in waqtiga kaa dhamaado. marka taasi aad uga digtoonaato waa inaad taladaas koowaad sameysaa. talada labaadna waxaa weeyaan imtixaanka siduu u kala darajo badan yahay 40 iyo 60 buu hadda darajada ay kala tahay sida halkan ku qoran. waa inaad ayadana aad waqtiga u kala siiso oo waqti badan aad geliso imtixaanka qaybta darajada badan, qaybta darajada yarna aad maxaa la dhahaa aad waqtiga aad wax yar ka yareyso qaybta kaleeto. talooyinkan markaan kasoo gudubno qaybta koowaad aan ku bilowna imtixaanka oo maxaa la dhahaa 20 su'aal weeye ayuu ku leeyahay. There are 20 multiple questions. Answer all questions and circle the correct answer ayuu ku leeyahay. marka su-aasha koowaad haddaan ku bilowna wuxuu ku leeyahay haddii ay sin theta ay la-eg tahay 4 loo qaybiyo 5 cosine theta maxay noqonaysaa? A iyo B iyo C iyo D ayuu ku siiyey. wuxuuna kaa doonayaa inaad jawaabta saxda ee aada soo saarto. haddii aan su-aashan ayada aan xalino marka koowaad waxaan qoranaynaa waxa uu ina siiyey sin theta waxaana uu yiri waxay la-eg tahay 4 loo qaybiyey 5. waxaana inaga rabaa cosine theta waxa ay la-eg tahay. si aan usoo saarno cosine theta waxaa lagama maarmaan ah inaan fahano waxa uu yahay su-aasha waxa ay ka hadlayso. su-aashan waa chapter kooda trigonometry-ga wuxuuna ka hadlayaa right triangle. right triangle hadda halkan ku sawirno angalki waa kana oo waa theta. kan waxay dhahaan opposite kasoo horjeedki waayaan waxayna xaraf ooga dhigaan B. kan waxay xaraf ooga dhigaan A waxayna ku magacaabaan adjacent. kan waa kasoo horjeedka angalka, kanna waa dariska angalku daris leeyahay dhahaan. kanna waxay dhahaan hypotenuse amaba C iyo xaraf ooga dhigaan. marka qawaaniinta marka sin theta waxay la eg tahay kasoo horjeedka oo ah B loo qaybiyey isku xiraha oo ah C. cosine theta waxay la eg tahay A dariska angalka oo loo qaybiyey isku xiraha. taanna waxay la eg tahay haddaan kuugu daro B kasoo horjeedka oo loo qaybiyey dariska A oo la eg sin oo loo qaybiyey cosine. intaa waa qawaaniin. qawaaniintan aad bay muhiim u tahay inaad xifdiso si ay kugu fududaato inaad imtixaanka xaliso. marka qaanuunkan koowaad
haddaan u imaano waxaad arkaysaa b inay u dhiganto 4 taan, c na ay u dhigato 5 taan. marka waxaan qoranaynaa a iyo b. waxaan leenahay b waxay la eg tahay 4, c na waxay la eg tahay 5. laakiin waxaanan haysanin a, xarafkii a isaga ma haysan. oo cosine-ta waxay tahay a over b sida halkan ka arki karto, a over b. laakiin a waxay tahay ma naqaano. marka waxaan sameynaynaa eedan qaanuun lagu soo helaa jiro, qaanuunkaas oo ay dhahaan Pythagorean theorem, a square plus b square waxay la eg tahay c square. haddaad mucaadaladan xalisood b da xagga u wareejiso oo minus b aad meeshaan dhahdo square, waxaa kuu soo baxaayo a waxay la eg tahay, labada dhinacna aad square root geliso, waxaa kuu soo baxaayo square root of c square minus b square oo la sii eg square root of 5 square, arqaamtii ku bedelaan xaggan ku haysan, minus 4 square. tan waxay la eg tahay square root of 9 oo la sii eg 3. marka eedii waxaan soo helnay inay 3 tahay, marka waxay noola eg tahay 3. xalka jawaabta ma ahan ugu dambeysay ee cosine ayaana laga rabaa anaga. marka waxaan leenahay cosine waxay la eg tahay eeda oo 3 aan soo helnay loo qaybiyey 5. okay, marka intaanan su-aasha aanan jawaabta saxda aanan kor ka dooran imtixaanka, waxaan kugu baraarujinaa in right triangle-ka haddii lagu siiyo a iyo b 4 iyo 5 iyo 3 aslan yaa la dhahaa, bas mararka qaar waxay ku magacaabaan 3 4 5 angle, right angle-ka. marka inta badan iska xasuusa b na waa 4 oo waa kan, c na waa 5, a na waa 4. qawaaniintaana xifdi oo ah sine iyo cosine iyo tan waxay leeyihiin. kadibna aslan hadduu sine ku siiyana waad maxaa la dhahaa waad xallin kartaa, hadduu cosine ku siiyana waad xallin kartaa labadaba. marka hadda kor aan tagno jawaabta saxda marka 3 over 7 ma aha, 12 over 5 ma aha, waa 3 over 5. tan uuna siiye weyaan. aan marka maxaa la dhahaa su-aasha ku xigta aan u tagno. su-aasha ku xigta wuxuuna leeyahay cotan alpha maxay la eg tahay, qaanuunkeeduu ku weydiinaya. marka qawaaniinta trigonometriga ani inta qawaaniin oo ay la idin siiyey ma aqaano ama dugsiga sare lagu dhigo runtii, laakiin waxa muhiimka waxa weeyaan inaad xifdiso qawaaniintan ayada. qaanuunka cotan waxa uu noqonayaa su-aasha labaadaan halkan ku xaliyo, cotan oo alpha waxay la eg tahay hal loo qaybiyey tan, tanna waa tan yar waxay la eg tahay hoos markaan ku xalinayna sine loo qaybiyo maxay cosine. marka cotan waxay la ekaanaysaa rumuustanita ama alfada iyo beytada iyo maxaa la dhahaa thetada iyo muhim ma ahan hadaan ka tagno oo aanan qorin sida halkan inta aan sameeyey, macnaha wax dhibi ma lahan. cotan waxay la eg tahay hal loo qaybiyey sine loo sii qaybiyey cosine. marka waxaan la egna waxay la sii eg tahay hal lagu dhuftay sine loo qaybiyey cosine. hal wixii lagu dhuftana waa sideeda iska ahaanaya. marka waxaa halkan nooga soo baxayso qaanuunkan oo ah sine over cosine bay la eg tahay cotan. haddaan halkan ka eegno su-aasha ayada ahayd aan kusoo laabano, waxay noqonaysaa maxaa la dhahaa cosine oo loo qaybiyey sine alpha. su-aasha ku xigto oo saddexaad iyadana waxay leedahay maxaa la dhahaa sine a minus b maxay la eg tahay. sine a minus b waxay la eg tahay sine a cos b minus cos a sine b. sidoo kale ayadana waxay kamid tahay qawaaniinta trigonometriga. marka qawaaniinta waa muhim inaad xifdo sida meeshan ka muuqata imtixaanka
qawaaniinta trigonometriga xooga iska saar. labada su-aal ee xigo su-aasha afraad waxay leedahay 6 factorial loo qaybiyey 3 factorial maxay la eg tahay. factorialkan marka wax adag ma ahan, waa wax aada u fudud. haddii aan ku xalino dhinacan waxayna siiyey 6 factorial loo qaybiyey 3 factorial maxay la eg tahay. factorialka calaamadan exclamation mark ee dhahan factorial haddii lagu siiyana waxay ka dhigan tahay micnaheeda 6 iyo wixii ka yar oo la isku dhuftay. 6 lagu dhuftay maxaa ka hooseeya 5 lagu dhuftay 4 lagu dhuftay 3 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 1. هذا واحد الريز كسرنا عندنا الناس كتستر عندنا كمان lagu dhuftay 3 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 1 loo qaybiyey 3dana iyo wixii ka hooseeya oo la isku dhuftay. 3 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 1. marka dhowr qaab baad u xalin kartaa. su-aalihii lasoo dhaafay sidoo kaleeto dhowr qaab baa ayagana loo xalin karaa, laakiin ana hadda waxaan dhahaa wixii isku mid ah hooseeyahay koreeyahan isla tuuri. 3 iyo 2 iyo 1 isla tuur, kuwa hoose la cancel. kadib waxaa kuusoo haraaya 3 6 lagu dhuftay 5 lagu dhuftay 4. 6 haddii lagu dhufto 5 waxay noqonaysaa 30. haddii lagu dhufto 4 waxay noqonaysaa 4 lagu dhuftay eber waa eber, 4 lagu dhuftay 3na waa 12. marka ayadana waxay noqonaysaa 120. marka 6 factorial loo qaybiyey 3 factorial intaan ayaa la egtahay. jawaabta saxda marka haddaan hadda u laabano imtixaankii aan u laabaneynaa. imtixaanka 6 factorial loo qaybiyey 3 factorial waxay noqonaysaa sida aan soo helnay 120. haddii aan wax qaldan waad igu baraarujin kartaan, dhib malahan commentiga hoose noo dhiga. waxaana ka cudur daaranayaa runtii quality-ga sawirka oo aanan fiicnayn, sidan buu igu soo gaaray. marka ani waxaan maxaa la dhahaa waxba kuma kordhinin. su-aasha ugu dambeyso waa complex number. safxadan boggan macnaa bog koowaad ee imtixaanka waxaa ku leeyahay 3 minus 2a 2i laga jaray 4 minus ama plus 2i. aan iska hubsano matana waxaa ku leeyahay 3 minus 2i laga jaray 4 plus 2i maxay la eg tahay. waxa la sameeyaa inta badan complex numberka haddii lagu siiyo i iyo j iyo k waxay ahaataba arqaamta saxdana waa la isku daraa sida 4ka iyo 3da 3da iyo 4ta. wixii i watana ramsiga watana amaba calaamadan watana xarafkan i ama j ha ahaado waa la isku daraa. marka waxaan sameyneynaa waxaan dhahaynaa 3 lagu daray 4
laakiin iska ilaali lagu daray ma aha hadda meeshan, sababtoo ah minustan 4kana way ku dhacaysaa, 2i-dana way ku dhacaysaa. marka 4ka maxay u bedeleysaa? 4ka waxay u bedeleysaa negative. forka waxay u bedeleysaa baan nidhi negative. Give me the pen. waxaan leenahay marka 3 minus 4 marka minus 2i-da horeeto oo tan ah, tan ma minus bay noqonaysaa mise plus minus haddii lagu dhufto waxay noqonaysaa maxaa la dhahaa minus 2i kale. marka jawaabta ugu dambeysa kuu soo baxaysa waxaa weeyaan 3 minus 4 waa minus 1 minus 2i minus 2i waxay noqonaysaa minus 4i. jawaabta ugu dambeyso kuu soo baxaysana tan ayay noqonaysa. aan ka fiirino marka imtixaankeeni jawaabta saxda ee waa tee 4 plus i ma ahan, 1 minus 4i na ma ahan, 1 plus 4i na ma ahan, waa minus 1 minus 4i. sidaas soo saar. qaybta koowaad ee xalka imtixaankan intaan ku egyahay la soco videoga kan ku xigo.